munaasabad lagu shaacinayay musharaxnimada Dr. Zainab Maxamed Magan oo u taagan tartanka doorashada golaha baarlamaanka gaar ahaan doorashada haweenka ee dhici doonta sanadka 2019 ayaa xalay hotel Bureeqa ee magaalada Hargeysa lagu qabtay. xafladan oo ay ka soo qayb galeen marti sharaf iyo mas'uuliyiin kala duwan ayaa waxa xubnihi halkaasi ka hadlay waxa ay dhamaantood soo dhaweeyeen murashaxnimada Dr. Zainab Maxamed Magan iyagoo sheegay inay garab taagan yihiin xafladan qiimaha badan aynu ku soo dhaweynayno musharaxa xildhibaan Zainab Maxamed Magan aad iyo aad baa ugu mahadsantihiin nagala soo qayb gashaan waana waxa loo baahan yahay in runtii ay qarankeena ay imaadaan xildhibaano aqoon leh siibahan waliba arrimaha bulshada wax ka yaqaan sida caafimaadka oo kale waxa uu ku jira laf dhabarta arrimaha bulshada marka aad iyo aad bay runtii u soo dhaweynaynaa dad aqoon leh oo sida Zainab oo kala marwa Zainab waan garanayna waa doctorad aad iyo aad uga qiimo badan waxay ku suntan tahay wax qabadka iyo horumarka degmooyinka sabwanaag iyo cadaad waanu garan karnaa Zainab Dr. Zainab qurba joog bay ahayd gaarigeedii insurance-keedii caafimaadkeedii wixii oo dhanba way isku saarnaayeen Yurub bay joogtay waxa ka doorbiday inay soo noqoto ay dalkeeda timaado ay shaqo qaran qabato doctoradu runtii inta la sheegay in ka badan buu qalanta habluhuna way u qalmaan waxaan san leeyahay arrimaha kootadii waxa la midka lafteenu aynu sida feejignaanteeda hala haato qorshaheediya waa aragnimadeedii isagaymaantinkeeda ayay leedahay inuu sidoo ballan qaaday dadnin dhiiran oo yiri wax walba waan qabanayaaba lagu ogaa sidoo soo sheegay waxa leedahay doorashada 2019 soo socdo lagu tijaabino iyo birito aad isku shaandheynta soo socota habla ka muuqdaan meesha ila wadiga kootan xirayaan waxaynu isugu nimcaawa shaacinta xildhibaannimada Marwo Zainab Maxamed Magan Ficiis oo u sharaxan golaha baarlamaanka laba arrimood labadaba mid waa markii koowaad inan inta ay soo sharaxdo aanu ka hadalno ama aynu isugu nimaadno inanta xafladeeda marka aad baan u soo dhaweynayaa waxa weeyaan in aynu raahno habluhu way u qalmaan in la doorto iyo in iyagu isdoortaan waayo habluhu waxay yiraahdaan chance hal nasiyo haddana qofka inta ugu badan ee codaysa waa dumar iyo caruur dunyaduna haddii qof walba halkuu qalmo la geyn lahaa wax badan ba sida imika yihiin yani dhaami lahaa ama hore uga socon lahaa Zainab waxaan leenahay insha Allah ilaahay hadduu ku khayr leeyahay ku guuleeyo haddana ku khayr lahayna ilaahay ku barbar mariyo insha Allah waxaan rajaynaynaa inay ku khayr leedahay Soomaaliland waddanka Soomaaliland haddaad eegto dalku wuxuu ka dhisan yahay oo nolosha markaad eegto hooyooyinka ubadka korinaya hooyooyinka dadaalaya hooyooyinka dhaqaalaha soo saaraya waddanku wuxuu runtii ka dhisan yahay xagga dumarka dawladuna waxay ka dhutinaysaa xagga dumarka Zainab kulley inkastoo isfaaninayn haddana dhakhtarnimada ay noqotay Yurub ka soo baxday saamowey baan ku lahaa shaqadeeda oo maanta agaasimo ka gaadhay saameyn baan ku lahaa ama anaaba u soo baxaa maanta oo xildhibaano noqonayso insha Allah dadka taageersan ayaan ka mid ahay Jamaal Aadan Diiriyo halkan fadhiya waxaan mar labaad u sheegayaa iyo mar saddexaadba inaanay Zainab Maxamed Magan wax challenge ku haynin gabagabadii musharax Zainab Maxamed Magan ayaa iyaduna dhankeeda waxay hadal ka soo jeedisay munaasabadaasi waxaan u sharaxanahay golaha wakiilada ee Somaliland kootada dumarka gobolka Maroodijeex waxaan rajaynayaa inay dumarka Somaliland ay maxay toolay haday ku biiraan golaha wakiilada ama golaha baarlamaanka ay wax badan ka bedeli doonaan situationka ama xaaladaha ay dumarku ku sugan yihiin inay xeerar badan oo dumarka iyo caruurta iyo inta jilicsan u daneynaya ay keeni doonaan wax badan baa laga hadlay kootada dumarka oo sanadihii hore
ee dawladihii hore laga hadlay in soo dhaafnay ee waddankeena laakiin maanta ayaa ilaahay suurto geliyay inuu madaxweynaha iyo golihiisa wasiiradu ay ansixiyaan waxaan haddaba ka rajaynayaa golaha wakiilada iyo golaha guurtidaba inaanay adkaynin oonay dumarka ku adkaynin in badan bay soo fadhiyeen oo ay u suurto geliyaan hablaha dumarka Soomaaliland inay iyaguna fursada helaan oo ay waddanka markastaba waan la shaqaynaynaa waxbaan la qabanaynaa waa raggeeni waa inamadeenni waa adeeradeen waa walaaladeen laakiinse inay fursada ayaguna nasiiyaan oo ay dumarka Soomaaliland gacmaha qabtaan oo ay soo dhaweeyaan oo aanay ku adkaynin ciidan la hadlayaan waliba aan gaar la hadlayaan waxa weeyaan golaha wakiilada iyo golaha guurtida waxaan ku rajo weynahay inaan sidaa uu madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland sameeyay iyo xukuumaddiisu ay sameyn doonaan Sadam Waaya Arag telefishinka Saab Hargeysa